beri baa waxaa tartamay fardo iyo jirjiroole. Farduhu waa mid ka mid ah xayawaanada ugu dheereeya isla marhaantaana aad ayuu u qab weynaa. Wuxuu la tartamayaa farduhu jirjiroole oo ka mid ah xayawaanada nooca dhulka hoostiisa socda ama xamaaratada loo yaqaano. Wadahadal ayaa dhex maray. Ma tartanaa farasow? Haa, waynu tartamaynaa, laakiin maadaa ila tartami karaa, ayuu ugu jawaabay. Maxaa diiday bay tiri inaan kula tartamo? Waayo waad iga yar tahay, imana gaadhaysid. Faraskii qab ayaa ku jirta iyo isla weyni. Dabadeed jirjiroolihii koox saaxiibadii ayuu ku noqday oo uu la soo tashto si uu uga qayb galo tartanka iyo sidii uu ku guuleysan lahaa. Waa la gaaray waqtigii qorraxdu soo bixi lahayd. Aroortii ayay noqotay. Waxaa bilaaban doona tartan xiisihiisa leh oo aad u cajiib ah. Saaxiibadii saf ayay soo galeen jirjiroolihii. Jirjirooluhu saan sheegay daawadeen waa nooc ka mid ah xayawaanada dhirta fuula oo yaryar. Dabadeed tartankii ayaa bilaabay. Farduhu uma qanacsana waayo qab, isla weyni iyo kibir baa ku jira oo wuxuu u arkaa inuu ka guuleysanayo. Laakiin sheekadani xitaa waxa ay xambaarsan tahay dhiirigelin. Waa kan tartankii ayaa bilowday. aad buu u qoslaya oo la yaabaya. Faraskii ayaa aad u dheereeyay. Uu orday kadibna waa u istaagay. Waxa uu arkay jirjiroolihii oo daba socda. Waa ay tashteen. Wadana waa u hor socdaa. Mar walbaba waa u istaagaa oo yar u ka tago. Waayo wuxuu og yahay inuu daqiiqad ku soo qabanayo. Wuu istaagay haddana mar kastaba dhulka hoostiisa uu fiiriyo wuxuu arkaa inuu soo qabtay. Ugu dambeyn waxaa la gaadhay goobtii guusha. Faraskii uu ooyay, halkii ayaana looga guuleystay. Sheekadan waxa ay ka turjumaysaa inaadan waxba yasin oo wax walba ay macquul yihiin.